waxaa runtii jira 5 arrimood oo saameyn weyn ku leh guushaada ama guuldarradaada. saameyn ayay 5 arrimood ku yeelanayaan horumarka aad rabto inaad ka samayso nolosha. dawada wax weyn qodobka koowaad runtii haddii laga helo ood la timaado guul ku horseedaya wax weeyaan waa inaad koow fahantaa ood awood u yeelatay inaad fahanto dareenkaaga iyo mashaacirtaada gaarka ah. qofku ma kuu barto mashaacirta dareenkiisa ma kuu barto ee uu ogaado isagu muxuu dareemayaa iyo waqtiyadu wax dareemayo iyo siduu u dareemayo dareenkiisa markuu qofku fahmayo mashaacirtiisa waxa la yiraahdaa waxay ka qayb qaadataa qofkaasi inuu guuleysto. dawada marka aad waxbarashada bilaawayso jaamacadeed haddii aad garanayso naftaada maxay jeceshahay oo marka fiilka aad jeceshahay ee isleedahay waxbaad ka keeni kartaa oo waa fiil naftaadu ay ka hesho haddii aad gasho horumar baad ka gaaraysaa. haddii aad og tahay oo naftaada aad dareensantahay inay fiilka ku fiican tahay oo runtii ay ku wanaagsan tahay isla marhaantaana ay jeceshahay haddii fiilka ama takhasuska aad gasho waxa la hubaa horumar inaad ka gaarayso. balaa waxa la hubaa haddii aad gasho takhasus aanad jeclayn haddii aad gasho waxay u badan tahay in runtii bartanka marka aad marinayso inaad runtii aanad sidii la rabay aanad u baran. waan aad baana u dhacda arday badan oo arrimahaas ay ku dhacaan oo intay galaan takhasus aanay jeclayn runtii ku fiicnaan waaya oo hadhow in badan oo ka mid ay ka wareegaan. marka qodobkan runtii koowaad wuxuu ku leeyahay waa inaad ogaataa dareenkaaga war maxaad dareenkaagu muxuu yahay maxaad jeceshahay maxaad necab tahay maxaad inta badan muxuu ahaay naftaada soo jiitaa goormaad cadhoota maxaa ka cadhaysiinaya yacni dareenka bani aadamku uu leeyahay oo dhan noocyadiisa kala duwan ama cadho ama jacayl ama nacayb ama soo dhoweyn ama fogeyn wuxuu doona ahaadee waxaa lagu leeyahay qofku markuu barto dareenkiisaas waxa uu runtii ay keensanaysaa inuu dhinaca wanaagsan uga faa'iideysan karo. sida oo kale markaad shaqada aad gasho haddii shaqadan aad gashay ee aad bilowda ay tahay shaqo runtii naftaadu ay jeceshahay maxaa imanaya inaad shaqadii ku raaxaysato laakiinse bal ka waran shaqadan aad ka shaqaynaysa hadday noqdo shaqo aad karaahiyeysanayso oo naftaadu ay nacab tahay. marka waa muhiim inaad ogaataa oo naftaada haddaad ogaato shaqooyinkay jeceshahay dee waxay keensanaysaa shaqooyinka noocaas inaad raadsato. kuwa marka haddaad gasho dee waad ku ficnaanaysaa wax fiican baad runtii aad ka keenaysaa mustaqbal fiican baad ka samayn kartaa. sidoo kale daawada markaad og tahay dareenkaaga aad garanayso waad ogaanaysaa waxaad ogaanaysaa dareenkaaga goormuu kacsan yahay goormuu noocaa yahay marka waad la soconaysaa dareenkaagii. oo tusaale ahaan haddii adiga oo ah nin aada u xaruuriya oo runtii mujaamalo badan oo dadka wada jecel haddii aad garsoore lagaa dhigo dee waxaad ogaan kartaa garsoore inaad ku ficnaan kareen sababtoo garsoore wuxuu u baahan go-aan ayuu dhiibayaa go-aankaasi ama waa dil ama waa nolol. labada qof ee ganaqsiga uu la yimi midna wuxuu oranayaa waxa weeyaan hala sii daayo midna xukun buu saaraya. haddaad tahay qof mujaamalo badan oo dadka wada jecel oo qof kasta raba inuu raali geliyo dee go-aanka ma qaadan kartid garsoore ma noqon kartid. marka kow qodobkani wuxuu ku leeyahay waa inaad barataa naftaadan hota baro waxay tahay baro maxay ka heshaa maxay nacabtay maxaa ka cadhaysiiya waanaad ogaataa. qodobka labaad dawada wax weeyaan marka aad barato mashaacirtaada iyo dareenkaaga ku gaarka ee shakhsiga markaad barato waa inaad xakameyn kartaa dareenkaaga. inaad xakameyn karto dareenkaaga iyo mashaacirtaada waa qodob aada u muhiim ah. haddii aanad xakameyn kareen nolosha kuma guulaysanaysid. haddii wax yar aad ka xanaaqdo oo markiiba aad boodo oo hawlihii aad waday o dhan aad kala tuurto dee waad fashilmaysaa adigoo meel fiican hawsha maranayo qof kaa cadhaysiinaya. markaasa maxaa imanaysaa inaanad xakameyn karin cadhadaadii maxaa taa ka dhalanaya inaad fashilanto. xaaskaagii reerkaagii baad isku yara dhacaysaan waad cadhoonaysaa cadhadaa haddaanad xakameyn kareen xaaskii baad furaysaa. waa muhiim inaad xakameyn karto dareenkaaga noocu doono dareenku ha noqdo nacayb qof aad nacab tahay baa kuu soo galay ood wuxu qabanaysaa adigoo shaqaalaha oo adeeg bulsho haya ay qof aad nacab tahay kuu soo galay dareenkaaga haddaad xakameyn kareen qofkii si xun baad ula dhaqmaysaa taana lama rabo. qofkii customerka ku yimi macmiilka waanaad markasta si fiican ula dhaqantaa
qof aad jeceshahay oo aad ayaa ku soo galay shaqana waad haysaa laakiinse waxaa la tartamaya qof kale oo aanad jeclayn waa inaad si siman cadaalad ugu samaysaa waa inaad xakamayn kartaa dareenkaaga daawada xakamaynta qofku inuu xakamayn karo dareenkiisa waa qodobada guulaha qofka u horseeda ay ka mid tahay waa haddii kalena waa qodobada lagu fashilmo haddii aad isxakamayn kari weydo waxay imanay qaladaha badan inaad runtii aad samayso bal qisas kale tilmaamay ee aadka u badan waxaa ka mid ah nin isagoo wadadii maraya baabuurkiisii fuushan baabuurkii ka horeeyay uu dhaqaaqi waayey oo xoogaa uu istaagay kadibna cadhooday cadhadii ay keentay baabuurkiisi inuu ku dhufto baabuurkii ka horeeyey markuu ku dhuftayna qofkii fuushana ayuu dilay markii uu soo degay warka qofkii dhintayna markaasuu iskarta wiiri waan qaldana waan cadhaysnaa damee kaa saaraysa waa maya marka inaad xakamayn karto dareemadaada oo dhan waa qodobka labaad ee lafdhabarka daawada qodobka saddexaadi waxa weeyaan waa in naftaada aad ku qasbi karto ku dhiiri gelin karto shaqadii lagaaga baahna inay qabato dadku daawada qodobkay ku kala tageen waa qodobkan qaarna ay guulaystayaasha ku biireen qaarna ay ku biireen kuwa fashilmay waa maxay naftaada waa inaad ku dirqii kartaa ku qasbi kartaa in shaqadii loo baahnaa ay qabato haddii beri lagaa rabo report waa ina naftaada oran kartaa reportka waa inaad qortaa waa inaad qortaa marka shaqadii ku sugaysa naftaada waa inaad oran kartaa nafay qabo marka kolba sida dadku si ugu kala duwan yihiin qofna waa qof naftiisa ka adkayn oo iyadoo ay hogaaminayso oo isagoo berito imtixaan galaya ayuu iska seexanaya maqaaxidu ka sheekaynaya qofna waa qof naftiisa gacanta ku haya oo markay hawlo u taalo qabanaya oo naftiisa ku oranaya qabo marka waa inaad taqaano siyaabaha loo dhiirigeliyo naftaadan dhiirigelin bay kaaga baahanta si ay hawsha u qabato marka naftaadii waa inaad ku dhiirigelin karto inay hawshii loo baahnaa ay qabato sidaa daraaddeed waxaa la idhaahdaa dadka guulaystayaashii waxay ku guulaystaan waxa weeye in naftoodii ay ka adkaadaan oy naftoodii runtii ku qasbaan shaqo aanay jeclayn inay qabato si ay beri u raaxaysato dadka fashilmeena inta badan ama dadka caajisiintii waxay naftoodiiba ka adkaatay oo waxay ku guul daraysteen inay naftii ay ku qasbaan in shaqadii loo baahnaa ay qabato taasaa waxay keentay markaa inay ay noqdaan qaar fashilmay oo caajisiina dawada marka qodobka saddexaad wuxuu ku leeyahay haddii aad rabto inaad horumar gaadho waa in naftaada aad ku qasbi kartaa ood runtii aad muxuu ahaye ku dariiqi kartaa in hawshii loo baahnaa ee kugu taagneed ay qabato laakiinse dhaqankaaga hadduu noqdo dib u dhigis beri baan qabanayaa saadan baan qabanayaa saakun baan qabanayaa waxaad ogaataa dariiqaas inuu yahay kii fashalka marka qodobkana waa muhiim inaad naftaada barto inay shaqada ay qabato inaad naftaada ku dhiirigeliso shaqadii loo baahnaa inay qabato oo sideedii ay u qabato qodobka afaraadooda waxa weeyaan waa inaad barataa ood ogaataa dadka kale dareenkooda yacni dadka kale dareen bay leeyihin mashaacir bay leeyihiin waa inaad ogaataa la socotaa haddii aad tahay nin maamulo ah oo de manager ah shaqaalahaaga dareenkooda waa inaad ogta oo qofkiiyo xaalad adag ku sugan haddii aad dareenkiisa tixgelin weydo doo ku nacaya qofkiiyo aabihii dhintay haddii aad tiraahdo war shaqadii lagaaga baahna soo qaba sheekhow aabbaha uu dhintay ilaahay ha naxariisto laakiinse shaqa kuu taalla qofkii macna dareenkiisii iyo mashaacirtiisii maad eegin maxay keensanaysaa qofkii inaanu ku jeclaan taasi waxaa ka ratimaya adiga laftigaaga guushaadii ma suurtogelayso sababto shaqaalaaga hadday ku nacaan oo meeshii wada shaqayn la-aan ay timaado waxba kuu suurtogeli maayaan markaa dadka kale dareenkooda inaad ogaato oo dadkii oo runtii ku jira xaalad adag haddaad tixgelin weydo oo adigu aada iska faraxsanaato qofkiiyo dhibaataysan haddaad dhibaatadii waxba kala qaban weydo oo adigu si kale ula dhaqanto dee bini aadamku dareen bay leeyihin oo ku nacayaan marka qodobkan afraad wuxuu ku leeyahay waa inaad barataa dareenka dadka waa inaad barataa hadduu xataa saaxiibkaa yahay hebel maxaa ka cadhaysiiya muxuu necab yahay waa inaad qofka dareenkiisii la socotaa xaaladihiisii gaarkaad la socotaa markaa taasi waxay keensanaysaa guul inaad gaadho oo runtii aad ka faa'iidaysato aqoonta aad u leedahay qofkaas dareenkiisa inaad ka faa'iidaysato adigu halka aad rabtay in la gaadho ama shaqaalaha ay gaadhaan aad u kaxayso qodobka ugu dambeeya daawada waxa weeyaan
waa inaad dadka kula dhaqantaa mucaamalo wanaagsan. qofka dareenkiisii baad baratay, mashaacirtiisii baad dadkii aad ogaatay kula shaqaynayay, asxaabtaadii. maxaa lagaaga baahan yahay? inaad si fiican dadka ula dhaqanto. la dhaqanka dadkana qaacida asalaa jirtaba, qaacidadaas umaad raacaysa. waa maxay qaacidadaasi? qofka waxaad ula dhaqantaa sida aad jeceshahay adiga in lagula dhaqmo. qaabka aad rabta inay dadku kuula dhaqmaan aduna dadka ula dhaqan. ma rabtid in lagu xanto, ma rabtid in runtii muxuu ahay lagu xaqiro, ma rabtid in lagu caayo, adiguna ha samayn oo dadka kale ha ku samayn. waaba intaasba. intaa haddaad la timaado dhaqan wanaagsan baad dadka gudahooda aad yeelanaysa. dabada qodobkan waxaa raacaya waa inaad xiriir dadka la samaysa. xiriir inaad samayso guusha qayb weyn bay ka tahay. oo qof kastoo markastoo xidhiirkaaga uu badan yahay oo dad badan aad xidhiir la leedahay, waa markastoo fursadahaada nolosha ay badan yihiin. adigoo iska fadhiyo qofka soo qaraacaya, war hebel oo shaqaa bartaa ka bannaan, mid kalaa ku soo qaraacaya, waa meeshii halkaa ahayd, fursad baa taalla, meel baa tegaysaa, qof aad garanaysa aad arkaysaa, waxbuu kuushe warbuu ku siinaya. marka xidhiirkan aad dadka la leedahay faraha badan leh, furas badan buu kuu soo jiidaya. marka isku day inaad xiriir ka badiso. qof kastood baran karto baro, waa muhiim. marka aad baratana qaabka aanu sheegnay ula dhaqan. markaad ula dhaqanto qodob kala daawada jiro saddexaad, oo waa maxay? waa inaad xakamayn kartaa naftaada marka aad dadka la dhaqmayso. xakamaynta kow waxa ka ah meesha looga baahan yahay no inaad tiraahdo, waa inaad no oran karto. nin saaxiibka ayaa ku kaxeeyey, wuxuu ku yiri war maantayna mari muxuu ahay imtixaankii berri baynu gelaynaa, mid akhrin mayna maanta, kubadaanu ciyaarayna. waa inaad no oran kartaa. marka maya waa inaad oran kartaa, sheekhow anigu kubadda ma ciyaaro, imtixaankan akhrinaya. haddii aad iska noqoto dameer dhaan raacda aad noqoto, oo qof kasta aad iska raacdo, oo qof kasta iska jeclaato, oo qof kasta iska dabagasho, khasaaraad ku dambaynaysa. marka waa inaad kala ogaataa goorma ayaad noo oran kartaa qofka aad xidhiidhka la leedahay, ama saaxiibka ha noqdo, ama qof shaqaale ha noqdo, ama qof kaleba ha noqdee. goormaad yes oran kartaa, waanaad kala barata. meesha noo u baahan waa inaad noo tiraahda. haddaad aragto qofkani inuu kuu jiidayo wax kasoo horjeeda mustaqbalkaagii iyo dhaqankaagii iyo akhlaaqdaadii, haddaad aragto inuu kuu wado, waa inaad noo tiraahda. haddaad aragto wanaag iyo khayr inuu ku wadana, waa inaad yes tiraahda. markaasuu xidhiidhkaagu fiicnaanaya. marka ogow, xidhiidhka waxaa u asala kow isku da xidhiidh wax alla waxaad xidhiidh la samayn karto dadka. isbarasho waa inaad samaysaa. lambartuu qaabkaad ula dhaqmaysa waa noqda qaabkaanu sheegnayoo sida aad dhaqantay, sida aad jeceshayna kuula dhaqmaan waa inaad ula dhaqantaa. lambar 3 waa inaad naftaada xakamayn kartaa oo wixii u baahan